السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. ترينا وقيبتي لبعض وكو حريرسان قيبتي هوري ايان هالكن idin kusoo gudbiyey taasi oo ku saabsanayd qorshaha harkii madooba oo ahaa isku daygii dil ee xukuumaddii militariga ahayd ee dalka Itoobiya ay doonaysay sanadkii 1979 in ay ku kharajiso madaxweynihii hore ee Soomaaliya madaxweyne Maxamed Siyaad Barre kaasi oo noqday markii dambe halbacaad lagu lisay. qaybta labaad xogta laga helay ninkan sirdoonka ahaa ee dalkaasi Itoobiya waxay ku bilaabmaysaa sidan. Tasfaye waxa uu tilmaamay in qorshihii hore uu si guud u beegsanayay fursado kala duwan gudaha dalka. Tasfaye waxa uu tilmaamay in qorshihii hore uu si guud u beegsanayay safar gudaha ah, kulan dadweyne ama dhaqdhaqaaq aan si buuxda loo ilaalin, laakiin xaqiiqadu ay si dhaqso leh u muujisay in arrintu aad uga adag tahay sidii loo maleynayay ama qorshuhu u ahaa. meel kasta oo la isku dayo in laga raadiyo xog ku saabsan jadwalka madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxaa ka hor imanayay nidaam amni oo aad u adag oo si joogto ah isu bedelaya. waxa uu ninkani xusay in xukuumaddii militariga ahayd ee Soomaaliya ay dhisaysay sanado badan nidaam sirdoon oo si qoto dheer isugu xidhan, nidaam ka dhashay waaye aragnimo hore oo xiriir la leh midowgii Sofiyeeti, taas oo ka dhigtay mid si gaar ah uga digtoon dhaqdhaqaaq kasta oo dibadda laga soo abaabulo. sidaas darteed raadinta jadwal sax ah oo lagu kalsoonaan karaa waxa ay noqotay hawsha ugu adag ee hawlgalkan. qorshaha fulinta ayaa markii hore lagu saleeyay in hawlgalku dhaco muddo kooban gudaheed, laga yaabay dhowr toddobaad ilaa bil ama 2 bilood, laakiin Tasfaye waxa uu xusay in xaqiiqadu ay ku khasabtay in jadwalkii la fidiyo. muddo bila ah ayaa lagu lumiyay isku dayo lagu xaqiijinayo xog sax ah, iyada oo marar badan ay dhacday in xog la helay ay noqoto mid duug ah ama si ula kac ah loo marin habaabiyey. waxa uu xusay in nidaamka Soomaaliya uu si ula kac ah u abuuri jiray xog been ah si loo jahawareeriyo cid kasta oo isku dayda in ay la socoto dhaqdhaqaaqyada hoggaanka sare ee dawladda militariga ah ee Soomaaliya. sirdoonka Itoobiya oo ka hawlgelay gudaha Soomaaliya waxa uu ku guuldaraystay in uu la socdo buu yiri dhaqdhaqaaqa madaxweyne Maxamed Siyaad Barre, jadwalkiisa safar ee gudaha, booqashooyinka hawlaha u baahan ama u baahda kormeerka madaxweynaha iyo arrimo kale. tani waxay ahayd meelaha dagaalka ugu adag ee ku dhexmariyay labada sirdoon ee labadan dal ee cadawga isu haa. intii lagu guda jiray marxaladan, kooxda hawlgalku waxa ay bilaabeen dadaal kale oo muhiim ah, raadinta canaasiir gudaha Soomaaliya ah oo taageera hawlgalka. tani waxa ay ahayd mid ka mid ah qaybaha ugu halista badan ee qorshaha, maadaama qof kasta oo la soo xusho uu noqon karo mid laba waji leh ama si fudud u fashilin kara hawlgalka. laba waji waxa loola jeedaa in uu yeelan karo weji labaad oo uu ugu shaqayn karo NSS, hay-addii sirdoonka Soomaaliya. Tasfaye waxa kale oo uu xusay in dhowr isku day oo lagu doonayay in lagu kasbado shakhsiyaad gudaha ah ay ku soo dhammaadeen guuldarro, qaarna ay sababeen in la xoojiyo xidhiidhka si looga fogaado in la kashifo shabakadda. waxa uu si gaar ah u xusay in kalsoonidu ay noqotay arrinta ugu adag ee hawlgalkan, maadaama aanay jirin hab lagu hubin karo in qof gudaha laga hawlgeliyaa uu dhab ahaantii daacad u yahay maamulka Addis Ababa iyo in kale. isla waqtigaas Itoobiya waxay isku dayday inay ka faa'iideysato dareenka saluuga xeesha dheer ee la sheegay in uu ka dhex jiray waqtigaas qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada qalabka sida ee ciidankii xoogga dalka Soomaaliya kadib dagaalkii Ogaden. fikradda ayaa ahayd in laga dhex helo xubno diyaar u ah in ay bixiyaan xog ama fududeeyaan hawlgalka. si kastaba ha ahaatee, Tasfaye waxa uu xusay in tani ay noqotay mid aad uga adag sidii la filayay, maadaama nidaamka Soomaaliya uu si dhow ula socday saraakiishiisa, isla markaana uu si adag u xakameeyay dhaqdhaqaaq kasta oo laga yaabo in uu muujiyo khilaaf gudaha ah. qof kasta oo la tuhmo waxa uu halis u ahaa in si degdeg ah loo qabto, taas oo ka dhigtay isku day kasta mid khatar weyn leh oo ay haliso culusi ku hoos duugan yihiin. waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqay in Soomaalidu gaar ahaan saraakiishii ciidamada qalabka sida ee xataa mucaaradnimada ku bilowday ama ku bilaabay waqtigaas xukuumadda aanay ka suurtagal ahayn in ay ku dhici karaan qorshe noocan oo kale ah. waxay ahaayeen kuwa qowmiyadnimada iyo jacaylka halgankooda u ahaa mid sare, inkasta oo ay 78kii bilaabantay niyad jab weyn oo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada ku habsaday, kuwaasi oo badankoodu ahaayeen kuwa diiradda lagu hayo oo aan ka hoos bixi karin harka xukuumaddan macangaga ah sida uu ninkan xabashiga ahi ku sifeeyey. isku xidhka u dhaxeeyay buuri gudaha Soomaaliya iyo xarunta Addis Ababa ayaa sidoo kale noqday caqabad weyn. xog kasta oo la soo ururiyo waxay u baahnayd in si qarsoodi ah loo gudbiyo, iyada oo laga fogaanayo indhaha sirdoonka Soomaaliya. mararka qaarkood fariimaha waxaa lagu gudbin jiray habab dadban oo aad gaabis u ah,
taas oo keentay in go'aan qaadashadu ay noqoto mid dib u dhac weyn uu ku yimaado. waxa uu xusay in marar badan ay lumiyeen fursado ay ku heli lahaayeen tallaabo ay hore ugu sii qaadaan xagga hore, sababta oo ah xogtii soo daahday ma gaadhin wakhtigii loogu talagalay. waxaa sidoo kale jiray isku dayo lagu doonayay in lagu dhex maro safaaradaha shisheeye ee ku yaalay magaalada Muqdisho, iyada oo loo marayo shaqaale ama xiriir diblomaasiyadeed oo aan si toos ah u muuqan, gaar ahaan safaaradaha ay dalalkoodu xiriirka wanaagsan la leeyihiin Itoobiya. qorshahan ayaa lagu talagalay in uu bixiyo dariiq ka ammaan badan oo lagu gudbiyo xog ama lagu abuuro xidhiidh cusub, balse waxa uu la kulmay caqabado badan. safaaradaha laftarkoodu waxay ahaayeen goobo si dhow loo ilaaliyo, isla markaana ay jireen xeerar adag oo ka hortagaya in lagu fuliyo howlgallo noocaas oo kale ah. Tasfaye waxa uu xusay in isku dayadani ay ku dhammaadeen in la joojiyo si looga fogaado in ay keeni karaan fadiixad diblomaasiyadeed oo ballaadhan iyo wajgabax ku habsada dowladda Itoobiya. markii la isku soo xooriyo marxaladdan fulinta, Tasfaye waxa uu ku tilmaamay mid ahayd dagaal aan muuqan oo ay dhinac walba isku dayayeen in ay ka hormaraan kan kale. qorshihii hadhka madow wuxuu u ekaa mid si fiican loo dhisay marka laga eego dhinaca fikradda iyo diyaarinta iyo isku dubaridkaba, balse marka la gaadhay heerka fulinta waxa uu ku dhacay shabag adag oo ah amni, shaki iyo xog aan la isku halayn karin. isku day kasta oo loogu dhowaanayo bartilmaameedkaasi waxa uu keenay halis cusub, halka dib u gurasho kastaana ay la micno ahayd in howlgalku sii dheeraado oo uu sii adkaado. ugu dambayntii, qaybtan xusuus qorka, Tasfaye waxa uu ku muujinayaa in howlgal noocan oo kale ahi aanu ahayn mid ku tiirsan hal tallaabo oo go'aan ah, balse uu yahay silsilad isku xidhan oo ay mid kasta ku xidhnaan doonto ama ay ku xidhnaan karto tan kale. inkasta oo ay jireen isku dayo badan oo lagu doonayay in la hirgeliyo qorshahan, haddana waxaa sii kordhayay dareenka ah in nidaamka Soomaaliya uu ahaa mid aad u adag in gudaha laga jibiyo, taas oo si tartiib ah u bilaabaysay in ay wiiqdo rajadii guusha ee howlgalkan ama qorshahan hadhkii madooba. gunaanadkii xogtan waxa uu si qoto dheer ugu iftiiminayaa in waxa ugu muhiimsanaa ee u dhexeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya xilligaas aanu ahayn oo keliya dagaal ciidan oo muuqda, balse uu ahaa dagaal qarsoon oo sirdoon, xeelad iyo maskaxna ku dhisan. inkasta oo dagaalkii Ogaadeen uu ahaa wejigii ugu muuqday ee colaadda, haddana wixii ka dambeeyey waxaa si dhab ah u bilowday dagaal aan lahayn xuduud cad oo ka socday gudaha magaalooyinka, safaaradaha iyo xataa gudaha hay-adaha dowladeed ee labada dal. halkaas ayay ka dhalatay xaqiiqada ah in dagaalka dhabta ahi aanu mar walba ka dhicin furimaha hore ee dagaalka, balse uu ka dhaco meelaha aan la arki karin waqtiyada qaarkood. Soomaaliya xilligii madaxweyne Maxamed Siyaad Barre waxa ay dhistay nidaam amni oo aad u adag oo ku dhisan feejignaan joogto ah, gaar ahaan kadib khibradihii ay ka heleen ama ay ka dhaxleen xidhiirkii hore ee ay la lahaayeen dalal badan oo uu ka mid yahay isbahaysigii gaashaanbuurta Soofiyeedka ee loo yaqaanay Warsaw. taasi waxa ay keentay in sirdoonka Soomaaliya uu noqdo mid si weyn uga hortagi kara isku day kasta oo dibadda laga soo abaabulo, gaar ahaan qorshayaasha dilalka khaarijinta oo kale. dhanka kale, Itoobiya oo uu hogaaminayay Mengistu Haile Mariam waxay si joogto ah u aragtay Soomaaliya in ay tahay cadow istiraatiiji ah oo halis ku ah jiritaankeeda, gaar ahaan marka la eego fikirka Soomaali weyn ee weli saamaynta ku lahaa siyaasadda gobolka. aragtidaas ayaa ku riixday Addis Ababa in ay adeegsato dhammaanba agabka ay haysato oo ay ku jiraan sirdoon, diblomaasiyad, cudud iyo taageero shisheeye si ay u wiiqdo dowladdii Soomaaliya. mid ka mid ah arrimaha sida cad u muuqday ee ka dhex muuqday howlgallada noocan ah ayaa ahaa in Itoobiya aanay helin taageero buuxda oo ay ka filaysay gudaha Soomaaliya, gaar ahaan saraakiisha ciidamada ee la rumaysnaa in ay saluugsanaayeen hoggaanka militariga iyo guud ahaan hoggaanka dalka. inkasta oo ay jireen dareenno mucaaradnimo oo hoose, haddana inta badan saraakiishaasi ma aanay qaadin tallaabooyin toos ah oo halis gelin kara noloshooda. taas beddelkeeda waxa ay door bideen in ay si qarsoodi ah oo dhuumasho ah mid uga siibtaan dalka oo ay dibadda ugu yaacaan, iyaga oo u sii gudbaya dibadda si ay uga mid noqdaan dhaqdhaqaaqyo hubaysan oo mucaarad ah oo qorshaysnaa waqtiyada in laga hirgeliyo goobo kala duwan. inkasta oo ay kuwaaba Itoobiya saamayn ku lahayd marka hore ama hindisihii hore, tani waxa ay si weyn u wiiqday qorshayaashii ku salaysnaa in gudaha laga helo taageero toos ah, maadaama qof kasta oo la tuhumo uu halis degdeg ah ugu jiray in la qabto ama la ciqaabo. doorka KGB ee ku aadanaa xaaladdan waxa uu ahaa mid aan la iska indhatiri karin. inkasta oo aan mar walba si rasmi ah loo shaacin howlgalka ay ku lug lahaayeen, haddana taageerada dhinaca sirdoonka, tababarka iyo talabixinta ayaa sare u qaaday awoodda nidaamka Itoobiya. Addis Ababa waxay ka faa'iidaysatay khibraddaas
si ay u horumariso habab cusub oo lagu wajahayo cadowga, gaar ahaan dhinaca howlgallada qarsoon. taasi waxa ay ka dhigtay dagaalka sirdoonka mid aad u heer sarreeya, halkaas oo labada dhinacba ay si joogto ah ugu tartamayeen xog, saamayn iyo xeelad. si kastaba ha ahaatee, dhammaan dadaaladaas waxaa si cad ay u muujiyeen in hoggaankii taliskii militariga ee madaxweyne maxamed siyaad barre uu ahaa bartilmaameedka ugu weyn ee nidaamkii dhergiga. ma ahayn oo keliya in la doonayo in la wiiqo awoodda Soomaaliya, balse waxaa sidoo kale jiray aragti ah in meesha laga saaro astaanta ugu weyn ee midaynaysay nidaamkaas. Mengistu Haile Mariam iyo golihiisa sare waxay aaminsanaayeen in haddii hoggaanka sare la cabsi geliyo ama la wiiqo, ay si dabiici ah u burburi karto awoodda siyaasadeed ee Soomaaliya. gunaanadka sheekadani waxa ay muujinaysaa in dagaalka u dhexeeyay Soomaaliya iyo Itoobiya uu ahaa mid aad uga ballaaran wax la arki karo ama laga arki karo dusha sare. waxa uu ahaa dagaal ay ku loolamayaan laba nidaam oo militari ah oo isku dayaya in uu midba midkan kale ka takhaluso, iyaga oo adeegsanaya dhammaan agabka ay haystaan. howlgallada sidan oo kale ah, gaar ahaan howlgalkan hadhka madow, haddii ay ahaayeen kuwo dhab ahaan la fuliyey ama ku ekaa qorshe, waxay astaan u yihiin heerka ay gaadhsiisnayd colaaddaas iyo sida ay dowladahaasi u arki jireen in guusha dhabta ahi ay ku jirto maskaxda, sirta iyo qorshaha, halkii ay ka ahaan lahayd oo keliya awoodda isku muquuninta furimaha dagaalka. ninkani waxa uu gabagabada xogtiisa ku xusay in si rasmi ah faylkan loo soo xidhay bishii afraad sanadkii 1980, iyada oo wixii intaas ka dambeeyey Itoobiya u wareegtay qorshe kale oo ah in ay jabhada ku kiciso dowladdii Soomaaliya, iyada oo wixii intaas ka dambeeyey Itoobiya u wareegtay in ay 100% awoodda saaraan taageerada jabhadaha, iyada oo wakhtigaasba jabhadihii ugu horreeyey muddo sanad iyo dheeraad ah ay ka howlgelayeen howlgallo ay kaga hortegayeen dowladdii Soomaaliya. sidoo kalena ay sii wadaan jabhado kale inay hubeeyaan ama ay wax ka aasaasaan taageeradooda. intaasi haddaba ayaan ka soo qaatay xogtaas oo dhinacyo badan taabanaysa, oo uu ninkani kaga hadlay taliskii dowladdiisa iyo howlgalladii ammaanka, dagaalada ilaa burburkii xukuumaddii dhergiga sanadkii 1991, iyada oo xogta howlgalkani ay qayb gaar ah ka ahayd xogta guud ee uu ninkaasi ka diyaariyey xusuus qorka dalkiisii Itoobiya. halkaas haynoo joogta qaybta labaad. waxaan idinkaga tegayaa in aad muuqaalka like saartaan. sidaas iyo nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.